halkan ayuu ka bilaabanaya filimkeena maanta. Dadkani waxay la mudaharaadayaan inay dawladdu joojiso in kaymaha Amazon laga qodo macdan. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Justin, aabaheeda ay la joogtaa, waxa uu la shaqeeyaa dawladda. Halkan ayuu waqti kula qaadanaya gabadhiisa. Sidoo kale ninkan waxaa lagu magacaabaa Legendara, saaxiibada ayuu sharaxaya waxaanu ku leeyahay waa inaan ka hortagnaa si aysan kambaniyadaasi u qaadan dhulkeena. Amazon waxaa ku nool xayawaan aad u fara badan iyo sidoo kale qabaa'ilo calibaysteen ah, marka waa inaan difaacnaa si kambaniyadu aysan lacag uga samayn halkaas. Sidaas ayay ku heshiinayaan. Justin waa ay seexanaysaa, waxayna ka walwaleysaa waxa ay samayn lahayd. Subaxnimada ayay Legendara u imaanaysaa, waa ay raali gelinaysaa, waxay ku leedahay qayb ayaan ka lahay safarkaaga, waana ku raaci doonaa. Halkan maqaaxida ayay isugu imaanayaan habeennimadii, waxayna ka tashanayaan waxa ay samayn lahaayeen. Gruubkani waxa ay doonayaan inay kambaniyada Amazon jooga ay u tagaan si ay hortooda ugu sameeyaan mudaharaado. Adduunka iyo caalamkana ay tusaan in shirkadahan ay kasoo horjeedaan dadka masaakiinta ee halkaa degan si loo qaxiyo. Justin waxaa soo wacaya aabaheed, isla markiiba telefoonka ayay ka qabanaysaa, waxauna ku leeyahay xaggeed u socotaa, laakiin waxay u sheegaysaa markiiba inay saaxiibadeeda kolleejka ay raacayso. Dalxiis koobanna ay u socdaan, way ka qarnaysaa aabaheed maadaama uu dawladda u shaqeeyo. Telefoonka ayay ku dhigaysaa aabaheed, kadibna waxay diyaarsanaysaa boorsadeedii iyadoo isu diyaarinaysa safarkan inay la gasho saaxiibadeedii galaaska. Tagsigan ayay soo raacaysaa Justin, kadibna waxay macasalaaminaysaa saaxiibteed. Ugu dambeyn waa ay kasoo dhaqaaqaysaa. Tagsigana waxa uu keenayaa meeshan aeroboortka. Gruubkii kale halkan ayay kasoo degan diyaaradda si ay u raacaan diyaarad kale oo yar u geysa tuulada. Dhammaantood waa safar. Pilotkan halkan ayuu ku sugayaa. Baskii kooxdan waday ayaa markiiba imaanaya, isla markiiba Legendar iyo saaxiibkii laabta ay iskilinayaan. Legendar waxa uu yahay tiimkan hogaamiye, qorshahana isaga ayuu ka yimid. Diyaaraddii ayay korayaan, pilotkina waxa ay isbaranayaan Justin. Legendar ayaa waxa uu ku leeyahay gabadhan aad ayay qurux badan tahay, wayna fiirinaysaa Justin ilaa markii dambe ay diyaaradda soo gashay. Diyaaradda gudaheeda ayay ku jiraan iyagoo aad u faraxsan, waxayna rabaan inay safarkoodan ku guuleystaan maadaama ay doonayaan in la badbaadiyo qabiilka halkaas ku nool ee masaakiinta. Diyaaraddii waa ay soo kacday, waxayna soo gashay hawada. Ugu dambeyn waxay kasoo degeen tuuladan yarta ah, waa ay soo dhex lugeynayaan iyagoo raadsanaya mootooyinka ay raaci lahaayeen. Legendarna waxa uu baayacaya mootooyinkan si ay u geeyaan webiga dhinaciisa kale. Mootooyinkan ayay soo qaadanayaan, dhammaantood waa ayna soo fuulayaan. Jidkii ayay soo koreen, waxayna u socdaan meeshii ay ka bixi lahaayeen si ay u gaaraan kaymaha Amazon. Dhowr mooto ayay soo qaadanayaan maadaama gruubkani aad u badan yahay. Ugu dambeyn waxay imaanayaan meeshii doonida, kadibna halkan ayay kaga degayaan mootooyinkii. Doontan yarta ayay soo raacayaan, si dhaqso ayay doonta kusoo raacayaan tiimkani ilaa markii dambe ay soo galeen meeshii webiga ahayd. Legendar waxa uu saaran yahay afka sare ee doonta isagoo hogaamiye iska dhigaya, waxauna wadaa saaxiibadii. Kayntii quruxda badneed ayay gudaha usoo galeen. Hal mar ayay waxay sikadiisa u arkayaan. Dhammaantood shabeelkan halkan fadhiya waa ay la yaaban yihiin dabeecadda dhulkan iyo quruxda halkan ay leedahay. Qaarkood waxaa soo food saartay cabsi, iyagoo la yaaban si ay ugu guuleysanayaan mishinkan. Ugu dambeyn waxay kasoo degeen dooniyihii yaryara, kadibna waxay yimaadeen dhulka. Dhammaantood aad ayay u faraxsan yihiin shaqadan ay hayaan. Halkan ayay isaga bedelayaan dharkii, iyagoo gashanaya dharka shaqaalaha si ay u muujiyaan mudaharaadkoodu inuu noqdo mid guuleysta. Legendarana waxa uu tiimkiisa ku hogaaminayaa inay guuleystaan. Qorshahana isaga ayaa iska lahaa. Kayntii ayay soo galayaan saaxiibayaal, laakiin markiiba Legendar oo hogaaminaya waxa uu ku leeyahay aamusa. waxay rabaan inay si tartiiba ku galaan kaynta, iyagoo doonaya inay iska soo duubaan muuqaalo live ah marka ay kambanigani qodayaan dhulka. Si dhuumaaleysi ayay kusoo dhaqaaqayaan dhammaantood ilaa markii dambe arkeen kambanigii halkan shaqo ka wada. Legendar wuxuu u qaybinayaa maskarkan, waxa uu ku leeyahay wejiyadiina waa inaa qarsataan. Justin waa ay soo dhaqaaqeen iyada iyo saaxiibadeed, waxayna soo dhex galeen shaqaalihii iyagoo iska dhigaya inay shaqaalahan ka mid yihiin, laakiin labada nin ayaa arkay. Isla markiiba waxay soo qaadanayaan boorsooyinkoodii, waxayna wejiga gasteen dhammaantood face maskarkii. Internetkii ayay furteen, kadibna waxay galeen video live si ay u muujiyaan inay yihiin mudaharadayaal dhammaan caalamkao dhan laga daawado. waxay ku hor mudaharadayaan kambanigii oo shaqadiisii wataa. Isla markiiba ciidankii militariga ayaa imaanaya ee waardeynaya kambaniga. waxay isku dayayaan inay dhammaantood qabtaan, laakiin waxa ku socda kaamirado way arkaan. nin kasta waxa uu isku xiray silsilad si aysan ciidamada militarigu aysan meesha uga qaadan. Justin markiiba dhegta ayaa lasoo qabanaya, telefoonkana waxaa looga dhiftay xabad ilaa markii dambe askarigan baaskoolada madaxa ka saaray. isla markiiba telefoon ayaa soo dhacaya, waxaana lagu leeyahay dadkan waxbaa ku samaynina. ugu dambeyn kayntii waa laga soo saaray, kadibna doonyahoodii ayay dib ugu soo celinayaan militarigu. isla markiiba doonyihii ayaa lasoo saaray, laakiin Justin way murugaysan tahay, waxayna u aragtaa qorshahii inuu fashilmay. diyaaradoodii ayaa dib loo soo saaray si loogu celiyo magaaladii ay ka yimaadeen, laakiin markiiba halkan Legendar waxa uu ku leeyahay waa guuleysanay, isagoo fiirinaya social media waxa ka socda. qorshihiisina waxa uu arkaa inuu guuleystay. dhammaantoodna diyaaradda dhexdeeda ayay ku farxayaan. diyaaradoodiina waxay dul maraysaa kaymahan aadka u quruxda badan ilaa markii dambe matoorkii cillad ku timid. diyaaraddiina waxa ka kacay dab. dhammaantood way walwalsan yihiin ilaa markii dambe qaylo afka shubteen. way isku dhex qalqaleen, mid kastana wuxuu xagsanayaa saaxiibkiisii u badbaado. diyaaraddii waxay kusoo dhacaysaa kaymaha ilaa markii dambe saaxiibayaal iyadoo dhex jibaaxaysa geedahan aadka u dhaadheer. ugu dambeyn diyaaraddii halkan ayay istaagtay.
istaagtay. baylowdadii diyaaradda waa ay dhinteen, waa ay kasoo baxayaan intii badbaaday diyaaradda. dhammaantood waxay kasoo baxeen diyaaradii iyagoo uga soo dhex tegay dadkii meydka ahaa. wiilkan waxaa ku dhintay safarkan diyaaradda. saaxiibkii ayaa madaxa qabsanaya halka saaxiibtii iska ooyeyso. dhammaantoodna waxay galeen xaalad murugo ah. Legender aad ayuu murugaysan yahay maadaama tiimkiisii dhibaato ay soo gaartay. islamarkiiba cod ayay maqlayaan, kadibna hareeraha ayay firfiirinayaan. saaxiibayaal waa ay soo ordayaan, waxayna arkayaan in dad bacsanayaan. sanqarta ka baxaysa keynta ayay dhegaysanayaan dhammaantood. ugu dambeyn gabadhan waxaa dhuunta ka gashay fallaar, dhulka ayay ku dhacaysaa. dhammaantoodna waa ay kala cararayaan. gabadhan kalena fallaar ayaa lagu dhuftay. ninka madaxa ayuu qabsanaya maadaama saaxiibtii halkan ku nafbaxayso. umana jeedaan cidda weerarka fulinaysa. nasiib daro saaxiibayaal, dhammaantood waa la qabtay. Justin indhaha ayay kala furaysaa, waxayna arkaysaa qofkan hortaagan. waxayna gacanta u galeen kooxdii calibaysteenka ah ee iyagu u doodayeen si aan dhulkooda aysan uga kicin kamaniyadan. kooxdii ayaa afduubatay, dadkana ma yaqaanin, ismana fahmayaan sidoo kale luuqadooda. dhammaantood iyagoo maxbuus ayay soo qaadayaan. dadkii magaaladana waxay ku wiirsanayaan qabashada dadkan. Justin waxaa arkaysaa madaxa biniaadamka ee halkan suran. dadkana waxay cunaan hilibka dadka biniaadamka. aad ayay u faraxsan yihiin. magaalada dhanna waxaa ka socda damaashaad. boqorkii magaalada ayaa loo yeerayaa, kadibna waxa uu imaanayaa dadkii lasoo qabtay. aad ayay ula yaaban yihiin. boqoradan waxa ay samaynaysa indhaheeda iyo qaabka ay u eg tahay. islamarkiiba ninkan ayay cunto siinayaan. cuntadii ayay fuugelinaya ilaa uu markii dambe biyihii cabay. waxayna siiyeen cunto sun ah. maraqeedii ayuu cabay ilaa markii dambe ay dhagaxan dul saareen. tiimka intiisa kale waxay ku jiraan xabsigan. halkan ayay ka daawanayaan waxa saaxiibkood lagu samaynayo. boqoradii ayaa dul imaanaysa ilaa markii dambe ay kala soo baxday isha. dhammaantood waa ay sacbinayaan, wayna farxayaan halka saaxiibadeeda ay iska ooyayaan. boqoradiina waxay cunaysaa ishii ay kala soo baxday ninkanna waxa uu jarjarayaa hilibkiisii. dadkii magaalada dhan waa ay faraxsan yihiin, waxayna arkeen inay heleen maanta hilib fresh ah. Justin waa iska ooyeysaa. waxaa ku dhacay saaxiibkeed. horteeda ayaa hilibkiisii lagu karkarinayaa, dushiina waxaa laga marinayaa cusbo. dhammaantood waa ay murugaysan yihiin, waxayna arkeen inay ku jiraan xaalad halis ah. shabaqan ayay ku xiran yihiin. dhammaantoodna waxay marayaan caqaabta saaxiibkooda u maray. habeennimadii halkan ayay joogaan, halka dadkii tuulada ay ku dabaaldegayaan. dhammaantoodna waa ay caraysan yihiin ilaa markii dambe saaxiibkoodii soo waalay ee Legender uu ku yidhi qorshaheenii waa u guulaystay. halkana waxaan ka lahaa qorshe aydan idinku ogeyn. kamani ayaa lacag igu siiyey, waxaana rabay inaan caan noqdo. igama ahayn ayuu ku leeyahay dadkan inaan caawino. way xanaaqayaan, waxayna kusoo dhaqaaqayaan Legender si ay u dilaan, laakiin markiiba waxau ku leeyahay istajiya. aad ayay ugu xanaaqeen, waxayna ogaadeen ninkan inuu yahay nin danaysta. hawshan oo dhanna waxa uu maray inuu caan noqday, sidoo kale inuu shirkada waaweyn lacag kaga qaato. waagii ayaa beriyey. halkan ayay jiifaan, weli hurdadii kama aysan kicin. wiilkan yarka ayaa maska soo dusinaya, kadibna gabadhan ayuu wejiga ka saaraya ilaa ay markii dambe qayliday. way ku ciyaarayaan, laakiin markiiba ninkii sarkaalka ah meesha haystay ee calabaysteenka ayaa gudaha u soo galaya. kadibna waxa uu soo kaxaynaya Justin. boqoradii ayuu keenaya Justin. boqoraduna aad ayay u faraxsantahay halka Justin ay iska ooyeyso, mana taqaana waxa lagu sameynaya maanta. markiiba wejigeedii waxay ku sawirtay dhiigan. gabadhana waxay u arkaan inay tahay gabar muhiim u ah. suntan ayay ku buufinayaan. Justinna waxay ku dhacaysaa dhulka iyadoo saaxiibadeed ay arkaan. dib ayaa loogu soo celinayaa jeelkeedii. saaxiibadeed ayaa kusoo ordaya. halkan ayay soo fariisanayaan, mana garanayaan waxa gabadha lagu soo sameeyey. isla markiiba waxay weydiinayaan waxa ku dhacay, laakiin uma sheegayso, mana oga. maskaxdeedii oo dhanna waa ay maqan tahay. darogadii ayaa weli jirkeeda ku jirta. mar kale saaxiibayaal carruurtan yaryarka ayaa u imaanaya, kadibna waxay u keenayaan cunto. dhammaantood aad ayay u gaajaysan yihiin, waxayna isku dayayaan inay cuntadan cunaan, laakiin ma garanayaan cuntadani waxa ay tahay iyo waxa ay ka samaysan tahay. gabadhan waa ay shakisan tahay, waxay cunaysana ma taqaan, laakiin way ku khasban tahay inay cunto ilaa markii dambe ay aragtay inuu yahay hilib bini'aadan. isla markiiba waxay arkaysaa taatuuga halkan ku yaala. kadibna waxay soo xasuusanaysaa inay tahay taatuuga saaxiibteedii diyaaradda loo dhacday. carruurtan ayay fiirinaysaa, waxayna isku dhejinayaan maqaarkii taatuuga. way isku naxaysaa, waxayna ku noqonaysaa arrin mucjisa. isla markiiba way jiminaysaa saxankii, kadibna waxay isaga jaraysaa qoorta. way naxayaan saaxiibadeeda, waa ay kusoo ordayaan, laakiin gabadhan waa ay isdisho, waa ayna dhimatay. ninkan waxa uu keenaya ra'yi, waxa uu kala soo baxaya halkan daroogo ilaa markii dambe uu suntii afka u geliyey. kadibna waxa uu soo qaadanaya alwaaxan si uu caloosheeda u geeyo. waxa uuna ka rabaa in dadka magaalada markay hilibkeeda cunaan dhammaantood ay sumoobaan. isla markiiba ninkii ciidanka haysta ayaa soo galaya. gabadhii meydkeeda ayuu markiiba arkaya, waa uu ku farxaya. isla markiiba gabadhii ayuu bartii ku jarjaraya hilibkeeda. saaxiibadeedna waa isqarinaya, mana doonaya inay arkaan saaxiibteed hilibkeedii oo la jarjaray. magaaladii oo dhan waa isku imaanaysaa, waana maalintoodii ugu farxadda badnayd. hilibkii gabadha ayay jarjarayaan. magaaladii oo dhanna waxay qaybsanaysaa hilibkii, way cunayaan iyagoo u arka inay yihiin maalin aad u farxad badan. way tamaashaadayaan. hilibkeedii ayaa meel kasta waran, laakiin sidii ay rabeen ayay noqotay. dadkii oo dhan waa ay dhaadhaceen. suntii ayaa jirkoodii oo dhan gashay. isla markiiba Justin waxay kasoo baxaysaa xagga sare, waxay doonaysaa inay baxsadaa. saaxiibkeed Laris ayaa soo raacaya Justin. isla markiiba Legender saaxiibkii ayaa soo fuulaya, laakiin markiiba waxa uu ka gelinaya caloosha mindidan. aad ayay ugu cilqabaa isaga iyo saaxiibkiiba. waa ay soo baxsanayaan, waxayna kasoo baxayaan shabaqii ay ku xirnayeen iyagoo koynta soo
soo galay way cararayaan inta karaankooda ah. Justin iyo saaxiibkeeda waxay yimaadeen meeshan webiga ah waxayna doonayaan dhanka kale ee webiga inay u tallaabaan isla markiiba way soo dhaqaaqeen. Waxa uu tusayaa diyaaradii meeshii ay ku gubatay webiga ayay soo dhexgelayaan waxayna rabaan inay tagaan meeshan diyaaradda si ay u helaan telefoonadii halka kaga soo tageen. Way u soo dhawaanayaan waxayna soo galayaan kayntii waxay arkayaan qalfoofta diyaaradda weli waxay ku dhex jiraan kaynta gudaheeda saaxiibayaal. laakiin markiiba waxay arkeen in ciidamadii calibeysteenka ay daba joogaan. habeennimadii ayaa la qabtay labadoodiina waxaa lagu soo xirxiray halkan. indhaha ayay kala qaadaysaa Justin waxayna arkaysaa islaantan oo jirkeeda marinaysa waxaana cad way naxsan tahay labada gacmood iyo labada lugood ayay ka xiran tahay. Justin mana taqaana waxa ay ku sameynayaan iyo waxay u marinayaan. halka saaxiibkeed Laris lagu xirxiray qorigan halkan ayaa lagu dilayaa. aad ayuu u qeylinayaa xanuun daran ayuu dareemayaa. wiilkan ordaya ayaa u imaanaya boqoradii waxaanu ku leeyahay dagaal ayaa socda. waxa wadaa surka mid kamid ah shaqaalihii halkan joogay ee kambaniyada ahaa isla markiiba waxay ku dhawaaqaysaa boqoradii dagaal. mid kastana waxa uu soo qaadanayaa falaartiisii. magaaladii oo dhan waxaa ku dhacay jahwareer. fursad ayay u aragtaa Justin isla markiiba xarigii ayay iska furaysaa iyadoona cidna u jeedin. kadibna islaantii la joogta ayay dilaysaa waa ay soo cararaysaa waxayna soo gelaysaa kaynta. jirkeediina waxaa loo ekeysiiyey qabiilka halkan degnaa mana garanayaan. saaxiibkeeda ayay u imaanaysaa waxayna isku dayaysaa inay xarig ka furfurto laakiin markiiba waxau ku leeyahay naftay dhaafi kama yeelaysa. waxay doonaysaa inay badbaadiso ilaa markii dambe wiilkan yarka ah uu yimi kadibna waxa uu ku buufinayaa suntan halkaas ayuu ku dhintay isagoo jirkiisii oo dhan uu gogo-ay. aad ayay iskugu oyeysaa maadaama saaxiibkeed la dilay. Legendary waa uu qeynaya waxau ku leeyahay iga fur xariga laakiin waa ay ka cararaysaa. ciil ayay u qabtaa mana doonaysa inay badbaadiso. waa uu iska ooyaya waxauna arkayaa inuu keligiis meeshan ku haray. way soo cararaysaa Justin waxayna soo gelaysaa kaymihii aadka u waaweynaa iyadoo doonaysa inay badbaado hesho. shabeelkan halkan jooga ayay arkaysaa laakiin waa ay soo dhaafaysaa. wax ka weyn ayaa kayntan ku jira. telefoonkii ayaa halkan ka helaysaa isla markiiba waxay wacanaysaa gurmad. ciidankii militariga ahaa ilaalinaya kambaniga ayaa u imaanaya. gacmaha ayay taagaysaa waxay ku leedahay badbaadiya ma ahi qabiilkan laakiin markiiba codkeeda ayay garanayaan. kadibna waxay soo saarayaan helicoptertan. Justinna halkaas ayay ku badbaaday. dib ayay usoo fiirinaysaa kayntii quruxda badnayd iyadoo saaran helicopter dusheeda. halka Legendary hilibkiisa halkan lagu gogoynayo. saaxiibtii Justinna waa ay badbaaday. waa inagu talagashay ninkan in meesha lagu dilo maadaama uu khiyaamay. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeeyey.